كاد نو كاد هرت موقف كود رسمي ما كسي ما هي دونيس أنا كم قسمين أنا قلت شو بيدقيس أدو أحباب دونيس أفكي عراد دونيس أنا تكهلش أفكي حكومة عراد كهلش وتكهلش أفكي صحافي مادس هرت هيك هذه حاج أفكي حكومة عراد كهلش أفكي صحافي مدح بنانك مادس دمان ما هي قضية قرني ماذا مدح بناني سمعنا جبتيني عدو كنت مدي تنتي ما هي لقمان أو سياد دونيس حوي أفكي حكومة أنا أفكي حكومتك ما هذا وريا ما هي هو كان اسمه كوسي ما هي سياد دونيس سوق متشوي حقيقة أنا كنت عدو مكوجي ذلك قنص قال أرتل لقمان يدقي سمر يعني أرنتا عيسونا ما لها سيدان إمك السومالان كل عليه صلادين بدن يدقن بدن وإسكرب يعي وحلي وهلوجاس يجند ودن هنا مثلا وجاس كاسين ما هنين قرن من السومالان كوري مدو يدي سومالان ما كسور كذا يدقن الموسى بيحرق نمدي سمع قاري كرت دولة إيه ترى نمدي هالكين وارتاد ما وده يرتب هذا تما أوران أدو كتشوف ما يكتشوف مدار كعبت كتشوف بكرلاد تما هذا ما يوري سوريسنا كتشوف سومالي ما مش مسمى اسمه ورسنا وكورسنا وارتو كان سومالي ماشي حسب حاكم قدامي حسب حاكم كان أركي سجوا حرق وهاي مركا حرس مياه قدامي حسب حاكم كان مجلس هذا قرنيها إنه حرق وهاي مركا وحويان وحنو جبهنا عبد العزيز أنا ملي هو نوع يارجع ويصير كمالية ده قدامي كحين كبار رمكا ونين مدن مهنتين وحجامية لكن تدمي عادي يفعله هذي يهنك هذي الرجال دي ولا كومات شرو مدحدا iyo siyaasiyiinta dareenka xisbiga wadan u sheegayo dalkan yaa la cadawga iyo la heshiisa anu horta dadka ku jiray iyo dhiman dhameystirta dalka Djibouti waa dadan walaalanahay shaarnahay dawladna kuma qasbi karno qasab nagu aqoonso ama ictiraaf aynu dalka helnay qasab ku tahay assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh daawada meel kasto direen TV ka daawanaysan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan wareys kula yeelan doono maarayii hore ee wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood محمد وجورك سودو استوديو درين تي في إيه مقالة هرقيسة. لقمان أديكي بحث درين تي في أو معسنتين. إن وجورين محمد علاد قلبيت كتاجن أديك محمد أحان إن بلاه سليشيسيو حكومة النبضات إنها تكون تاجرته محاكو دي ساد ورد. إن سان هربا والشجع لقمان ومعدنتي اللي جاي حرونتا باريس الدنيا سي دي ده وحنا كنت تاجر سنة حكومة ده مع برنامج كده حكوا أول كأي وضع تلنا ولا نجرب تاجرنا. لكن حقيقة تعالى حويان علادا قبلada galbeedka Soomaaliland ka jirta waxa keenay amba sabay farsaxo ay la timiday dawladda hogaamiye madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciiro kadib markii ay ka qaadatay go'aamo isburinayo sabay wasiirkeedii warfaafintu Axmed Xasan Shaqaan ayaal inuu isku casilo arrinta darteed hadaba farsaxumada hore way dhacday laakiin qaabkii waxa la sidaa taalo xukuumadda waxa ilaa hadda muuqata in aan xukuumaddu ka dhabahayn oo nay boqolkiiba boqol ka go'onayn in xal waara laga gaaro colaadda ka jirta gobolada galbeedka Soomaaliland maxaan ku sababeynaa waxaan ku sababeynaa Luqmaano nabad baa jirtay madaxweynuhu iyo xukuumaddu isku dayday inay ka hirgeliso gobolada galbeed bariga Soomaaliland ama nabadii ay gaabo gogashii madaxweynaha qaranku dhigay weyn ogeyn gogasha haldoorka Soomaaliland oo dhan in la soo casuumay xitaa beelihii meesha isku hayay ka baxsanaa weyn ogeyn ugaas Cabdirashiid in loo yeeray oo madaxweynaha diyaarad khaas ah ay wada qaateen oo go'yaal cadcado nabadda ka turjumay garbaha loo saaray oo haldoorkii kale beesha dhexe xitaa aan gobolada Sanaag deganeyn soo gobolada galbeedka Soomaaliland ka soo jeedana loogu yeeray madal ballaaran ahayd haddaba ilaa hadda xukuumaddu qaabkii u waajahday gobolada galbeedka Soomaaliland waxa muuqata xukuumaddu inaanay ka go'nayn arrinkaasi waxa muuqata in wasiirka arrimaha guduhu ama wasiirka amnigu uu yahay qofka kale atay halka ururdaya labada beelood ee iminka farsamo xumada xukuumaddu colaadu ay dhex dhigtay ee Ciise iyo Gadabursi colaad hore u dhaxaysay xukuumadan ka hor iyo dad istilaya iyo dad la kala qafaalanayo midna meeyna noqon taas waa qodob haddaba hadiiba ay taasi dhacday maxaa keenay ilaa hadda inaan Google balaaran la dhigin Google madaxweynuhu inaanu dhigin inaan madaxweynuhu safar ku tagin inaan haldoorka Soomaaliland ee wax garadka ah ee nabadda ka shaqeyn jiray ee ahayn labada beelood oo istilaya meesha lagu arag ugu yaraan beesha kale la jaarka ee labadan beelood deegaanka ah ee deegaanka oo madaxweynaha hore ka soo jeedo hal doorkooda maadaama dadkan isku dhaqan iyo yihiin maxaa dhacdaa dad isdhex galay ay yihiin oo dhaqankooda garanaya in lagu soo casuumo iyagoo waliba si buuxda madaxweynaha u sheegay ciida markii uu tagay hotel Garan Hadi beeshan ku sheegay in madaxweynaha mar labaad ay dooran doonaan oo taageersiin oo madaxweynaha diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan maxaa diiday xukuumaddu inay soo casuunto maxaa keenay beesha adigoo aad ka soo jeedo maxaa keenay madax Cabdalla Sandheere inuu maalinba kaligiisii orto maantana uu marayo wasiirka arrimaha guduhu inuu waayay kalsoonidii labada beeloodba hore waxaan u ogeyn beesha waxaad uga jeedaa si ordo waxaan uga jeedaa kaligii inuu tago kaligii wasiirada la socday oo nabadda kaligii ma keenay nabadda wax ma muuqatamiya ma uu dadaalay wasiirku laakiin midda meesha talaxween marka arrin saa u balaaran colaad deegaana waa in la soo casuumaa dad haldoora dadkii nabadda ka shaqeyn jiray waana xukuumaddu arrintaa u daba fadhiisataa marka taa laga gudbo
waa in yar aan halkaa kaa galo maxamed intiinaan horta qodobkaan dhamaystiro labada beelood isdilay marka la heshiisiinayo beeshaada doorka uga banaan maxay tahay anigu maba lihiba door deegaankaaga in la soo casuumo waxa weeyaan waxaan horta maxaa uga banaan waxaan bixinaynaa anigu suudaanmihii afreer kuma hadlo waxaan bixinaynaa waa talo wax ku ool oo ah qaabka xukuumaddu u geli karto xukuumadda ma aha deegaan kalaatay inuu yeedho tan tusaale waxaan ugu soo qaaduun waa deegaanka ugu soo xigay labadan beeloodba ay dhaqan yaqaanaan ay saf yaqaanaan taynu uga soconaa waa taas weliba waa deegaan xukuumadda siyaasad ahaan intay halkaa ku shiriyeen ciiddii haldoorkooda iyo ningarboodkooda oo dhan madaxweynaha ku yidhi bilaa shuruud baanu ku dhisaynaa iyagoo markaa dhalinyar badan oo ciidan iyo tiktokera inantii maxaa gooshays ay ku jiraan dadka iyagoo xidhan arrimahan kala hadal xilliga ay xidhnaayeen madaxweynaha ku yidhi bilaa shuruud ayaan kugu dhisanaa mar labaad haddaba dadkii iyagoo saa diyaar u ah oo xukuumaddii aan cidba diidanayn maxaa diiday inay nabadan ay kala shaqeeyaan dadku waxa weeyaan dadka dhaqanka ixtiraam baa ka dhexeeya iyaga wax iska galaan ma ahaanu milihii dadkan la jaarka oo kale somalilantii kale haldoorkii beelaha bariga ka soo jeeday in la soo geliyo haldoorkii somaliland dhinac walba ka soo jeeday in la soo geliyo oo nabadan si ballaaran looga shaqeeyo wayna ogeyn luqmaano shir buu geeriso ku qabtay maalintii dhaweyd wasaaradda arrimaha gudaha ku qabatay shirkaa wayna ogeyn oo labada beelood colaadu ka dhaxayso dadkoodii haldoorkaa cidna ma joogin ee wax ka go-ayeen hadday joogeen beesha ciise waad ogtahay waxay leedahay ugaas iyo genday leedahay inkastoo wasiirka arrimaha guduhu shalay hadalla deelqaafa ugaaska ciise ugaas mustafa maxamed ibraahim uu lahaay oo ah diradha buu joogayo gaadhi etoobiyaan u wataa haddana dhaqanku xuduudaha way ka gudbaan iyagu siyaasiyiin maa xilal haya wasiirku wuxuu tusaale ugu soo qaatay inaanu yidhi adeerbaan oo xil buu ka haya dowladda etoobiya shirka saaxilo xanibnaan maayo taasina de waa khalad waxa weeyaan ninka dhaqankii hadduu joogo etoobiya uu soomaali yahay waxaa laga yaabaa deegaano isku haybiyiin halkan degaan saameyn buu ku leeyahay ciisuhuna way ka duwan yihin ciisuhuna ma laha sidan iminka somaliland ku dhacday salaadiin badan iyo dhaqan badan oo isgarab yaacaya waxay leeyihiin waa hal ugaas iyo genda waa dad nidaamsan ugaaskaasi ma aha nin qarannimada somaliland ka hor yimid oo yidhi somaliland baan kasoo horjeedaa iyo dhaqankiisu waa dad beesh ciise waa dad qirsoon somaliland inay dadka deegan somaliland inay qirsan yihin marka garaad kulmiye baynu soo casuunay xukuumaddu intaas jeer bay soo casuuntay si garaad kulmiye ugala shaqeeyo nabadeynta gobolka sool iyo dhexdhexaadinta maxaan ahdaa dee maxaan ahdaa dadka iminka maamulka gacanta ku haya gobolka sool iyo somaliland xukuumaddu intaasoo jeer bay u yaadhay ninkanoo deegaankiisu degan yahay oo isagu dhaqan u ah oo ciday ku daba feyshan yihiin maxaa keena wasiirkeena arrimaha gudaha inuu hadalla deelqaafa ku yidhaahdo nabaddu raadinaya maxay tahay waxaynu hore ogeyn dhaqanka samaroon inay bishii labaad ee sanadkan ay hore kalsoonida ugula noqdeen wada shaqaynta wasiirka arrimaha gudaha cabdalle maxaa kala dhexeeyo gaara si gaara baad u weeraraysaa intuu waraysu bilaabmay may cabdalle waa nin muxtarama waa nin odaya waa nin aanu saaxiibna wax xurgufa soo sameeya may cabdalle ixtiraam badan baa naga dhexay laakiin arrintani galbeedka somaliland arrin fudud maaha waa arrin colaadeed waa dhul nabad ahaa maanta colaad laga horanay farsamo looga horanay madax dhaqameedka beelaha samaroon somaliland bay joogaan nabadan wax baa laga weydiiyey madaxweynaha wasiirku way la kulmeen deegaankana dadkii colaadu ka dhexaysay labadii jiriba hoose ayaa la heshiisiiyey haddii ugaaska ciise aanu somaliland imanayn haddii ugaaska ciise uu etoobiya fadhiyo oo aanu gudaha somaliland fadhiyin haddii ugaaska ciise dadkiisa dagaalka ay u dhexeeyey uu u iman waayey oo uu kala qaban waayey bal ee dagaalka uu qayb ka noqday ma waxaad doonaysaa adigu in loo sameeyo haddaan la odhan waa ma matelo dadkii ciddii matashaan ula hadalnay aduma waxaad doonaysay qof dagaalkiina dhinac ka ahaa ama dadka kicinayay in dalkiisina aan imanoo meel kala jooga lagu marti qaado luqmaana ma xasuusataa markii colaadda bilaabmaysay baaqa colaadaas markii ay dhacday ciddii ku baaqday labadii dhinaca ku baaqay miyaad xasuusataa adigu sheeg maad xasuusataa anu dawriyahan su-aala kaagama jawaabi karo maad ka jawaabta labada ugaas baxeen ee samaroon iyo ciise markii xukuumaddu ay isku garaacday ay sababtay farsgo-aan maxaan ahda ha iyo meedeeda ay sababtay wasiirkeedii warfaafinta inuu arrinkaa dartii isku casilo ciddii ku baaqday colaadaas waxay ahayd ay hadalku kasoo yeedha waxay ahayd labada ugaas ee samaroon iyo ciise maanta marka la xalinayana labadu waa ugaas cabdirashiid iyo ugaas mustafaba waa laba ugaasoo nabadoona waxaynu madaxweynuhu wuxuu soo casuumeeyey garaad kulmiye oo deegaan gaaroo somaliland ku leeyahay aanu jirin nin dhaqan oo muxtaramana ah inuu nabadda bariga kala shaqeeyo haddaba ninkanuu deegaan ku leeyahay oon colaadna uhayn somaliland maxaa diiday nabadda in laga codsado inuu kala shaqeeyo ma xuma ciise iyo samaroon waa laba deegaanoo somaliland ku yaala nabad baan xidhaynaa bay tiri xukuumadda 17 bisha shaqaaqadii ka dhacday garbadada qof baa ku dhintay wasiirka arrimaha ka hadli mayso xukuumaddu dabcan waxaa ka horeeyay markii wasiirku uu joogo laa shirkii nabadaan wadnaa waad ogey dadkii la qafaashay iyo in guriga lagu gubiyay warbaahinta waad ka aragtay haddaba inaku taynu baahanay waxa weyn xukuumadda wixii uu qabsoomayeyna ma diidanin wasaaraddii doonta haato
laakiin waxaan leenahay war arrinkan si sax ah loo galo oo qaab waxay naga xalinaysaa labada beelood iyo ciise iyo samroon dad isdhex degan bay ahaayeen dad kale de waxa weeyaan isdhalay ab iyo abtii bay ahaayeen dad wada ganacsaday bay ahaayeen iminka dadka way kala guureen colaad hore u dhex taalina ma jirto arrintan intaanay sii fogaan qaab sax yaa la yiri nabadna waad ka shaqaynaysaa dadkoodii wax ka go-ayna hadalladii ilqaafa baad oranaysaa dee isma gasho way marka labadii beelood ee hoose ee mamaasan iyo reer cili ee isdilina la heshiisiiyey adigu yaa doonaysaa in wada hadalka la furo inaku jilib gaara iyo ashkhaas laba jilib baa isdilay sooma mee colaad way ka balaaranta laba jilib ay dhigayso oo iminka aad bay u balaartay inaku ma doonayno ashkhaas gaar in la heshiisiiyo iyo jilib gaar inagu waxaan doonaynaa si colaadan awdal iyo salal ka jirta ay u istaagto oo ina usii socon dadkan maleeshiyaadkan hubka qaatayna hubka looga dhigo waxaan u baahannahay qaab saxa in arrintii loo galo qaabkaa saxdii muxuu noqonayaa su-aal baan ku weydiinayaa luqmaan waxaa weyn ugaas cabdirashiid ugaaska beelaha gadabuursa ama samaro madaxweynaha wuu isxilqaamay gooy cadaabo la xidhay ilaa ceerigaabo diyaaradda la raacay wuxuu kala shaqeynayay nabadii laga dhalinayay ceerigaabo haddaba miyaad leedahay maanta deegaankiisa nabadda laga dhalinayo ugaasku diidaya isagoo ilaa intuu boqolaal kilomitir diyaaradu la raacay madaxweynaha si nabad halkaa ugala dhaliyo weyn ogeyno madaxweynuhu dhowr jeer buu hargeysa ku xasuumay maxaa diiday maanta arrintaa ay xukuumaddu waday in lagu arko dadkii wax ka go-ayayna gadabuursi ma ciisaba iska kaale salaadiintoodii waaweyneed mee wabar hargeysaynu ogeyno xukuumaddu sawiro badan kula gashay hargeysay kaantay laakiin kala saray Soomaa midna warsanay saaq bay taagnaa imika waa ciisi gadabuursi marsa marka waxa weeyaan wabar hargeysa xukuumaddu ku xasuumtay intaas oo jeer sawiraha la galay waa la xayisiiyay waa soo celinay bal waa sax deegaankiisa colaad ka jirta maanta ugaas cabdirashiid waa dadkiisa colaad ka jirta ugaaska waxa okay suldaan dawal samatar waxa weeyaan dadkan waa dad xukuumadda ogol bay hayeen markii madaxweynuhu u yeedho imanayay maanta maxaa loo arki waayay iyagoo at least madashiish fadhiya oo kalsoonidooda siinaya xukuumaddii oo la arrinka oo garab taagana amba qayb ka nidaamkii nabadda maaha ciiso kalaata gadabuursi iyo ciisaba dadkoodii wax ka go-ayay meesha ma joogaan way dagaalku levelkiisu heerka ma gaarsiisna sida dad badan ay qabaan oo deegaanka dadkii ka soo jeeday baa la wada heshiisiyey dawladdan intaan la soconno iyo cabdalle tacab badan bay ku bixiyeen waqti badan bay ku bixiyeen labada bilood haddaan la soo fadhiisiin dadkiis dilay mudana ma garano cidda kale la soo fadhiisinayo haddii aad halka hadal ka qabtan waan ku siin su-aasheeda kale waxay tahay ma ka qabaa way hadalka qaba waxa weeyaan oo 17 bisha May maxaa la siiso kaas yiri maxaa ugu dambeeyay ka la siiso oo 17 waa shirkii nabadda dhowr shirkad qof lagu dilay galbada warbixinta shalay wasiirka arrimaha gudaha markuu bixinay kuma darin warbixinta wasiirka arrimaha gudaha shalay uu ka bixiyay baarlamaanka markuu joogay waxa ku jira hadalada ilqaaf oo ka dhana maxaan idhaahdaa kale shanaad oo lahaa waxay ugu yiraahdeen idinku dad ilbaxaatiina anaku bidoobana waxay soo hadlaysan waxa ku jira hadalada ilqaaf oo ugaaska ciise ku jiray nabadna waa doonaysaa dadkan dhaqankoodii wax ka go-ayayna waad ku deelqaafaysaa isma gasho waxa weeyaan nabaddu maaha waxa madaxda xukuumaddu ka sheegan TV-da waa xaqaayiqda dhulka jira mid kale ugaaska ciise inuu rajo ka leeyahay nabadda ka dhex dhalatay deegaanka aanu qayb dagaal ka hayn ugaaska ciise weligiina colaad huriyeen colaadan labada ugaas baa ay ku baaqeen waa lagu kalifeeyay laakiin ugaas kale soo nabadda mu qaadan ugaas cabdirashiid iyo ugaas ciise waxaan aaminsanahay ugaas ciise ugaas cabdirashiid waa ka raacay boqolaal kilomitir shalay maxaa deegaankiisa lagu hayay anu soo noqdo qodobka kale socday arrinta qof lagu dilay shalay maxaa 17 bisha garbada wasiirku isuga jooga meesha lagu gubiyay guryaha oo gawaarida lagu afduubiyo anigu ku sheegay xubnaha qoyskayga asi muranka looga saaray arrintii ku jiray meesha soo bandhigay dadkiina weyn ogeen in la soo daayo imika wata la soo celiyay oo jabhadii afduubtay soo celis kuwii awdalna waa la soo celiyay waxaynu ogsoonahay maanta isu socodkii gobolka awdal iyo Djibouti maxaa saameyn badan bay ku yeelatay dad imika ganacsiga ugu badan ee u dhaxeeya waxa gaadiidka istaanka Djibouti ka baxa iyo gaadiidka Boorama ka baxa ee dadka labada dhinac kala baxaya deew kala guri tii way taagan tahay maanta oo dadka cabsi ma mari karaan marka waxaan u baahanahay war anaku xukuumadda anu shakhsiyan xukuumadda wixii u hagaagayay kama xogin wasiir cabdallana waa saaxiibkay wana soo wada shaqeeyay kama xubin laakiin waxaan waa qaabkan socota waa khalad xal ma keenayo xalkii doona oo nabadoonkii dalka doona oo dadkii ma diidanay la shaqeeya way aan u imaado Djibouti markasta hadalladaadu soo noqonaya waxaad moodaa inaad wakiil u tahay Djibouti difaacaya iyo madax dhaqameedkeeda socdaalladaadii ugu dambeeyay Djibouti waa tagtay waqti ay Soomaaliland aad u kala fogaayeen markii aad maarayaha wakaaladda biyaha ahayd musabixii Djibouti bixirka u jaray ma jirto hal mar oo aad si cad u tagtay Djibouti
oo aad ka soo jeestay mowqifkii madaxweynaha xilka hayay waqtigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi markaad xil ka tagtay jabuuti waa tagtay munaasabad baad kusoo sawirtay mar kastana hadalladaadu difaacideeda ka muuqda ma la odhan karaa wakiil jabuuti somaliland u joogaata luqmaan waad mahadsan tahay waanan ku faraxsanahay su-aalaha caynkaasi inaad weydiiso marka aad baan kaga mahadnaqaya waxa weeyaan somaliland dowladnimadeedu waxay ku hirgashay waxa weeyaan waa ilaalinta nabadda waa dimuqraadiyadda waa jaar wanaagga inakoo layna aqoonsan baynu la lahayn xidhiidh wada shaqeyneed oo fiican dalalka jabuuti iyo etoobiya xafiisaa inooga furnaa jabuuti waxaa la gaaray xilli xukuumaddiisa ilaa xilliyo ka dambeysaba baasaboorka somaliland in lagu tagaa la gaaray maalintii talada dalka ay la wareegtay xukuumadda cabdiraxmaan ciro xafiiska jabuutina uu shaqeynaya ka etoobiyana uu shaqeynaya maanta labaduba ma shaqeeyaan waxaad ogtahay xafiiska etoobiya imise bilood bilaa safiiriya wasiirkii la keenay wasaaradda aadan geedi qayaad kadib safiir ma laha xafiiskiina sidii uma shaqeeyo kii etoobiya waxaanad ogsoon tahay xiriirkii diblomaasiyadda socon jiray maanta ma jiro kii jabuutina saas laag marka xukuumaddan mid way xoojisay aan ku ogeyn xisbiga wadani xanteedu ahaa oo ah xiriirka soomaaliya inta xukuumaddani jirtay e-visa ka hirgalay somaliland wasiirada madaxda soomaaliyana maalmahan ugu dambeysay warbaahinta waxaa ku jiray in xitaa ay isfaham xukuumadda somaliland si dadban uga jiraan arrintaas arrinta jabuuti aan usoo noqdo mawduucaaga iyakaad aan usoo noqdo arrinta jabuuti kale wax baan kaa weydiiyey taa waxaan usoo socdaa markaa wadamada jaarkaa kalsoonidooda waxaynu ku helnay inaynu amniga xuduudaheena gacanta ku hayno wax dhibaato inooga tegaya amniga xuduudaheena uga tallaabaya iyo colaad ka jirta aanay jirin arrinka jabuutada ugu tiri jabuuti waad ku soo celcelisay war jabuuti waa dalan jaarnahay anigu muwaadin reer somaliland siyaasi reer somaliland siyaasi ay si gaara u taabanayso colaada farsamo xumada xukuumadda ku dhalatay ee ka hirgelisay gobolada galbeedka somaliland ayaan ahay nin dalkan usoo shaqeeyay baan ahay nin mustaqbalkiisu saameynaya baan ahay nin maanta la odhanayo dowladda shisheeye maxamed wakiilu yahay taasoo propagandadii xukuumadda iyo siday jecleed xukuumaddu inay xaqiiqa u dhigto dowladda jabuuti markii halgankii dalkan lagu xoreynayay lagu jiray maxamed halgankii waxaa ka dambeysay dagaalkii ictiraafka somaliland ay la gashay aan dhamaystirtay dhegeyso horta halgankii dalkan lagu xoreynayay markii lagu jiray qaadhaanka ugu badan meelaha ugu iman jiray jabuuti koobay ka ahayd masalan orada soo baadh taariikh markii lagu soo noqday dalkan dib u dhiskiisa maleeshiyaadkii la xareynayay ciidamada la qarabeynayay lacagta somaliland soo daabacay ganacsatada gacanta ugu badan ka geysatay ganacsatada reer jabuuti ee jabuuti ka shaqaysata baxay dowladda jabuuti may hor istaagin arrintaas dib u asaaskii nabadda somaliland door weyn bay ku lahaayeen ragga ganacsiyadooda iyo dhaqaalahooduba ka hirgalay jabuuti inaad argacday maanta anigu midaan diidana waxa weeyaan arrinka dhibta jirtaa somaliland gudaheedu ka jira gudaha jabuuti ka jira wasiirka arrimaha guduhu 14 bisha February sanadkan wuxuu sheegay xuduudaha galbeedka in ciidankeenu gacanta ku hayaan wax ka soo talaabay duulaan wadamada jaarka ay nooga yimidna aanu jirin shalayna wuxuu yiri colaada waxa qayb ka ah Djibouti iyo Soomaaliya haddaba dadka reer Somaliland waxaan weydiinaynaa shalayna waxayna lahaayeen Djibouti halkii taagnaayeen xisbiga wadaniga ognahay maantana tan ay yimaadeen anigu kuma jiro madaxda iyo siyaasiyiinta dareenka xisbiga wadani u sheegayo dalkan yaa la cadowa yaa la heshiisa anu horta dadka ku jira iyo dhiman dhameystirta dalka Djibouti waa dadaan walaalanahay shaarnahay dawladna kuma qasbi karno qasab nagu aqoonso ama ictiraaf aynu dalka helnay qasab ku taageer taasiga gaarto laakiin maxay naga dhaxeeyay weeyaan hadii wasaaradda arrimuhu jiritaankaaga diiday maxaa kala dhaxeeya Djibouti dalna iskuma hayno calana iskuma hayno ma laha Somaliland waa kamid laakiin waxaad ii sheegtaa Soomaaliya kamid leedahay may dhageyso Djibouti dal aynu isku hayno leedahay Somaliland dhul Somaliland Djibouti sheeganaysaana ma jiro calanka inagu haysataana ma jirto laakiin inayna aqoonsatiin inayna aqoonsan waa arrin iyada u gaar haddaba midaan ku weydiinay Luqmaan arrinka uu wasiirka arrimaha guduhuna lahaa bishii labaadna waxa weeyaan xuduudeena wax ka soo talaa ma jiro shalayna ina lahaa xuduud waxa weeyaan dalalba inagu soo duulay dee horta wasiirka lama baahna in hadal la iska ilaa waxa laga rabaa cadeyn baa laga rabaa adiga laftigaagu maaha laba shay oo waqti badan maxamed oo kala dhaxeeyay isku xidho ma laga yaabaa dawladdu inay cadeyn ma hesho horta kalena si fiican weligiga ma jawaabin oo aan ku qanco Djibouti waqtigaad xilka haysay ee musabbixiya isku dhaceen ee aqoonsiga Itoobiya yimid 2023 bilowgiisii ma jirto hal socdaalood ku tagtay hal sawirad Djibouti ku soo gashay inta ay sayeen maanta oo Djibouti Somaliland ay ku kala dhinteen in baasaboorkii Somaliland ee lagu tagay Djibouti ay joojisay iyo diyaaradii Djibouti Airlines ay Somaliland taadirteed ay u mamnuucday Djibouti la dagaalantay aqoonsiga Somaliland
ilaa haddana dagaal kula jirto xukuumadda xisbiga wadani oo markii hore jabuuti heshiis hayeenna ay ku kala dhinteen aqoonsiga darteeda oo dadkan wada ogyihin adiga maxamed ahaan maxaa kugu kalifayey dal somalilan cadowga intaa leekoa intaa tagto sawiro kusoo gasho xafladda caleemasaarkii madaxweynihiisa waad maasanta luqmaano horta hadalkii wasiirka arrimaha gudaha shalay kasoo yeedhay anuu soomaaliya in la duro xaq baan u arka wasiirku haynoo dambeeyukaada horta de xaqiiqda day jirteen ka hadlana soomaaliya in la duro oo maanta xukuumaddu taa soomaaliya u jawaabi kari laha gabadhii dhakhtarka hargeysa ku dhimatay ka hadashay waxay ka hadashay maxaana evisa ay xitaa sheegtay inay somaliland wada hadal uga socdo lacagta inay somaliland kusoo wareejiyaan laakiin iyagu waxay doonayeen ahayd sovereignty madax banaanida dalka yacni dalka soomaaliya inay xaqiijiyaan laakiin shilimaadka ay dadka qaadayaan inaan xaq u lahayn inaanay danka lahayn taa kama jawaabi karto haddaba anaku waxaan diidanahay shacabka somaliland in lagu majara habaabiyo meel aanay colaadi noo oolin war dadku way wada dhasheen ukaadi horta luqmaano afkii xukuumadda ay ula hadleen ukaadi dadku way wada dhasheen dalka sida dadka kalirka soomaalida Ethiopia aynu walaalownahay baynu reer Djibouti walaalownahay bale wax badan baa naga dhaxaya dhaqaalaheenu Djibouti wuxuu ku xidhay ka badan in aanu dal kale ku xidhnayn hadda ogtaydaan ogeyn maanta shilin kastoo Somaliland dibadda u dirayso Djibouti baa dhaxmara markii dalkii Soomaaliyeed burburay ee Soomaalidu wada lahayd halka ganacsatada iyo dadkeena ku magan galeen Djibouti baa ahayd haddaba maanta inuu Israa'iil dal ixtiraaf ka helo iyo inuu dalka ixtiraaf ka helo waa xaq inna ku aan leenahay in Djibouti ina aqoonsatay inaan aqoonsano waa xaq iyagu ay leeyihiin go'aan ay leeyihiin mid aan ku qasbi karno ma laakiin mid ma ku sheegano hadallada xukuumadda ka soo yeedhaya waa deelqaaf aan waxba ka dareen nabadda gobolada galbeedka Soomaaliland nabadii ceerigaabo markii xukuumaddu ka shaqeynaysa waxay gaadhay inay ula heshiiso Puntland oo heshiis la saxaato maamul goboleed ka tirsan dawladda Soomaaliya waxa bale la sheegay maanta dhawida dhalinyarada social media la geeyay inay xukuumaddu qayb ka ahayd haddaba markii nabadda ceerigaabo doonaysay inay dhaliso haddii ay ku qasabtay inay la heshiiso Puntland Djibouti oo dalweyna oo isagana maanta dan ugu jirta aanay jirin colaadaasi inay sii socoto ma waxay kula tahay dalalka jaarka inoo ah Ethiopia iyo Djibouti inay dan ugu jirto colaada gobolada galbeedka Soomaaliland ma dan ugu jirto qoriga halkan ka dhaca iyagana u galay maanta ikaad horta waxa ahayd maanta inaynu madaxweyne Mustafa Umar maamulka maxaa deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Ismaaciil Umar Geel inaynu ka wada hadalno maadaama ay labadan beelood ay Soomaaliland wada degaan Ethiopia wada degaan Djibouti wada degaan inaan ka wada shaqeyno si nabad loo dhalin lahaa waa mas'uuliyad daraan arkano adigu su'aasheedii wali igama jawaab markii saddexaad ee ahayd waqtigii Somaliland ay ka soo horjeesatay Djibouti musabixii madaxweynaha Somaliland xukuumaddiisii Djibouti iskaga dhaceen aqoonsiga Ethiopia iyo waqtigaas sawir kumaad gelin adoo xil haya waad mahadsantahay kamaana too muuqan maanta xafladda caleemasaarka Ismaaciil baa tagaysa oo dagaalka uu Somaliland kula jiro loo geesagay dawladdiisu dhageysorta maxaa ku kalifay ma ku xumeynta xisbiga wadaniga xukuumaddiisa ayaa arinta ku gelinaya horta midaan ku sheegay lamana horta mid waa mid xilligii horta xukuumaddan ka horeyso tiri Djibouti cadaweenna ma jirto soo baan xukuumadda madaxweyne Cirre ka horeyso tiri Djibouti xirban xitaa Muuse Biixi ku dar ma jirto adaa soo bandhigi doona ummadda soo bandhig horta taas waa qodob Muuse Biixi xiriirka ma jaram muu jarin Muuse Biixi aftixalka mid sameeyay ma iman ku yimid dhageyso waxa weeyaan horta xukuumaddan ka horeyso gaarsiisay heer ah Djibouti si joogta in dad loo abaabulo warbaahinta ka hadlo dalka Djibouti colaad inoogu abuura iyo reer Djibouti horta tan mid ka horeyso sameysay ma jirto xiriirkana mid gaarsiisay qaabka xukuumaddeenu u socoto horta ka horeyso ma jirto adaa soo baardo anigu haddaba xilligii Muuse Biixi iyo xilligii Siilaayeen xilka hayaba Djibouti waan tagi jiray Somaliland dhaw taga maanta mas'uuliyiinta xukuumadda madaxweyne Cirre ka haya iyaga laftooda hoosta u wada diraan eheladooda baasaboor ka soo qaata ku yiraahdo orada soo baar baasaboor ka soo wada qaata yiraahdo samad garan oo ka soo wada qaata yiraahdo aniga maxaa caldaarada oo ka soo jeeda gobolada Gabiley iyo Maroodi Jeex colaada laga horinayo gobolada galbeedka Soomaaliland iyo nacaybka iyo colaada iyo isfahan darada Djibouti laga dhaxbuuray dadka walaalaha labada dhinac mid si gaar ah u taaganaysa bartu Ilaahay ugu dhaliyay ee ka soo jeeda Soomaaliland maxmed ma muuqata waxaan islaaynaad saarayso may way isleeyeen dhigayso mana aqbali karno inaan meel aan waxba jirin war xukuumaduhu siyaasadda waa lagu kala duwanaadaa aqoonsiga maxaad u aragtay in laga soo horjeesto dalka aqoonsiga ka soo horjeestay diida aqoonsigaagu macadooba mise maaha si cadan ku luqmaan way ka khaldan tahay waxa kaaga khaldan ku sheegay dal badan ba siyaasad dal kastaaba siyaasadiisa uu madax banaan cid aqoonsanay cid aan aqoonsanayn way marka wanaagid ka dhaxaya dalka China mid ku qasbi kartaa Soomaaliland wanaagid ka madaxay waa cadow orday dhageyso Soomaaliland Ethiopia mid ku qasbi kartaa ومايا كيني ميد كقصب كرتا ومايا war ilmaada reer gacali waxa weeyaan waa jaahilnimo
waa maangaabnimo inaynu dalalka ku haysano maxaad u taageeri weydeen waxayga dalalka waxaynu u baahanahay inaynu si nabdoon wax u kala bedelayno u baahanahay qofka soo istaagay ee aqoonsi bixinaya ee maamul Soomaaliya ka tirsan kugu sheegaya ee xasan sheekh mar walba shirar jeel la qabanaya ee cambaareynta kugu sooreynaya cadowgaaga ma imsama midda ku sheegay laqano su'aasha toos uga jawaab maaray waxaan ku sheegayaa waxa cadowgaaga ah waxa weeyaan maanta colaadda ka abuurantay galbeedka Soomaaliland waxay suuro gelinaysaa in dawladda Soomaaliya wax laga weydiiyo inagu haddaynu jarno xiriirka oo leena Ethiopia iyo Djibouti eeg waa xuduudii halkan labada dalba way taabanaysaa waa balortiinaguma ma yorta chance man ku may sadoon isagu ma joogo xaqiiqdan ka joogo cadow ma kugu yidhi dalka aqoonsiga diiday arinta gobolada galbeedka Soomaaliland qaabka xukuumadda madaxweyne Ciro u wada waxay keenaysaa inaku markaynu jarno safaaradda Ethiopia ma kan sabab bila safiirta maxaa loo geen waayay safiir inaka marka leeyno waa xiriirkeena dawladdeena markay ka gaabiso eeg madaxweynuhu waa kan maamuladii Soomaaliya maalin kasta xukuumadda xiriirka la wado maxaa keenay dawladihii rasmiga ahaa inaan xiriirkooda u mari jirin Soomaaliya maanta xiriirkooda soo xidhmaan Ethiopia xiriirkeeda Muuse Bixi ba xidhay waa maya Djibouti xafiiskan uu shaqeynay maalinta Muuse Bixi ka tagay dalka Muuse Bixi barkhad dabadi xafiiskaas may uu shaqeynay xafiiskaas waxa la xidhay may mu xidhnaan macna markuu siirkan Muuse Bixi iyo madaxweyne Muuse iyo madaxweyne Ismaaciil waxbay aragtiba jirtay markaas laakiin xiriirku halkan la gaarsiiyay dawladda Ciraaq marna ma gaar horta su'aasheedii ka jawaabo dalka aqoonsigaaga madaxweynihiisa hadday yidhi aqoonsiga Soomaaliland waan ka soo horjeednaa wax aqoonsi ma jirto midnimada Soomaaliya aqoonsanahay qofkaasi cadow ma ku yahay qadiyada qarannimada Soomaaliland ee 60 milyan ee bulshada ee aad mas'uulka u ahayd dhammaan wadamada jaarka kula iyo wadamada kale wadamada inaga dalka aad u socotaa dhammaan wadamada dalka iga jawaab dhammaan wadamada jaarka kula ama midowga Afrika xubinta ka midowga Afrika garanaysa midowga Afrika dhammaan wadamada xubinta ka dal aan oran midnimada Soomaaliya taageersan horta ma jiro halka dalka noo kaadi horta mowqifkooda rasmi baan ku siiyay may haddii doonaysaa anagu qasbina uga jawaab dhigayso ad waxba doonaysaa afkii Ciraaq doonaysaa inaad ku hadasho afkii xukuumadda Ciraaq ku hadlaysaa afkii saxaafadda kuma hadlaysaa horta ii kaadi xaaj afkii xukuumadda Ciraaq ku hadlaysaa afkii saxaafadda madax banaan kuma hadlaysaa dhammaan wadamada midowga Afrika mowqifkooda iyo istaankooda dhabti ay afka ka yiraahdaan waa kaad sheegayso laakiin inay aqoonsiin madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya nin oranaya maanta in aqoonsado Afrika ka tirsan miyuu jira dawladda aqoonsato tiri Soomaaliya madax banaanideeda dhuleed baan aqoonsanaa waa maya laakiin cid ay ku xiran tahay waa inaynu garaacno dawladaha inaynu kalsoonidooda kasbano inaynu galaanka la sameeyno maanta xukuumaddu waxa kale aad ku guuleysatay waa galaanka Soomaaliya xukuumadda maxaa ay maamul goboleedka Puntland meel kale ku guuleysto Afrika ay shaq anu su'aashan ku weydiiyay waa Djibouti kama jawaabisid arinka Djibouti inay Soomaaliland aqoonsato inaan aqoonso waa siyaasad iyadoo gaar ah inay aqoonsiga ka soo horjeedo inay aqoonsigeena taageertay inay ka soo horjeedaan waa go'aan iyadu leedahay taasi waxay inay cadow ku tahay qadiyada qaranimada Soomaaliland Djibouti colaad ay noo hurisay iyo dagaal ay Soomaaliland kaga jirta qadiyada qaranimada madax banaanida Soomaaliland Djibouti cadow ku tahay diidantii meel Luqmaan oo si aad doonaysaa xawey afka xukuumadda kuma hadlano wariyanahay cadeeyo mar labaad aan ku cadeynaya dalalkayna la jaarka maalintii dawladnimadeena aqoonsanayaan galaangalkeena ku xiran tahay laakiin taa ku keeni mayna afxumo ku keeni mayna hadalay isburinaya haday Djibouti tahay haday Ethiopia tahay haday Kenya tahay haday Eritrea tahay dhammaan intii inoogu dhow iyo haday tahay kuwan xagga badda inaga la jaarkay Carabta dhammaan intii inoogu dhow inaynu wax ka soo goosano inakayna ku xiran tahay waa galaangalkeena ku xiran tahay laakiin qasab kuma lihin shaygan taageer shaygan diid taa doonaysana waa taas mid inaka inoo taala inaka waxay noo taala qadiyadeena maalin badal inaynu ka dhaadhicino madaxweynuhu Israa'iil buu ixtiraaf ka keenay waa lagu taageeray dadkii ugu horeeyay aanu dadka soo saaray bana maantana si baan taageersanay laakiin dalkan aad ku qabsato maxaad u taageeri weydaan baad ugu hortimid wax inaka inoo yaala ma wixii inaga dhaxeeyay waan ka gudubnaa inta bislaanay arrinkood marka lagu aqoonsaday waxay joojisay baasaboorkii Soomaaliland lagu tagi jiray Soomaaliland waxay joojisay diyaaradda Air Djibouti sababteedii ahayd haddaad xogta hayso iyo haddii kaleba soo markaa ma aha qofka markii aad aqoonsi heshay la saftay dadkii la dagaalamaya aqoonsigaaga waliba olole iyo dhaqaale badan ku bixinaya inuu yahay cadowga qarankaaga iyo jiritaanka qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland ee dhowr iyo 30 sano ay sugisay haddii eeba ku simay in ciro keeno miyay tahay mudana maareeye inaad u aragto aqoonsiga wax ciro leey miyaan ahayn inaad u aragto maareeye hore Maxamed Cali Daarood mudane mid qaran oo ay Djibouti ka soo horjeedsatay arrin qaran oo ay Soomaaliland heshay luqmada ma santaa walaal arrinka lagu raahdo ixtiraafka malaha meel kale wax kaga dhex guuxay luqmada
wax kala ku suurana arinka halka dalayno itiraaf ka helnay ee ah dawladda Israa'iil iminkaan sheegay dhowr daqiiqo hor xukuumadda waa lagu hambaliyay aniguna dadkii taageersanaa baan ku jiraa welina waan taageersan horta taas ku cadaato laakiin arinka raadinaysa ah dalalka inaynu qasab ka doono arrinkeena inay qasab ku taageeraan deegadeero taaminaan xaq taa uma leeyahay waxaan xaq u leeyahay sinam nin luqmaan horta okaade waxa weeyaan dalalka horta jaarka aynu nahay ixtiraam baa naga dhaxeeya dalalka aynu jaarka nahay maadaama aynu nahay dawlad soo koraysa oo amnigeedii iyo dhaqaalaheedii weli dhisaysa ciday doonta haato inuu cidna gaar si gaar uga la colowno marka Soomaaliya laga tago ma Soomaaliya dhul baan isku haynaa go'aansitaageena isku haynaa horta taa ma luqmaan waxaan ku sheegayaa haddii aad ka hadlayso qadiyadda qarannimada Soomaaliland waxa lagaga baahan yahay inaad ka hadasho arinta e-visa waxa lagaga baahan yahay inaad ka hadasho madaxda dawladda Soomaaliya maanta taagan ee leh Soomaaliland arinta waxbaan iska garanay kii shalay la soo dhigay maxaa hebel balcad wasiir balcad ku qornay marka waxaan u baahanahay taas inuu baahanahay haddaba arinta ah war colaad la boonbooniyo iyo dad la isku soofeeyaa maanta Soomaaliland danteeda kuma jirto war barigeennii baynu ognahay laascaanood dhibta ka taagan baynu ognahay maantana waxaa horeysa goboladii galbeedka maanta waxaan u baahanahay cid kastoo xuduudaha nabadeeda ay saameynayso inaynu miiska walaaltinimada iyo wanaagga wax ku doono oo aynu horta nabadda xasilino wixii kalaba dambeeyaan horta caqliga saxdi waa kaas Soomaali markasta hadalo propaganda ah bay sheegtaan madaxdoodu si ay Somaliland ugu kala dilaan oo waxa kamid ah arintii inanta dhakhtarka ku dhimatay Allah naxariistay waxa arkaysa qaabkii ugu hadlayay marka madaxdu hadalkooda waxaan filayaa wax ka soo qaad ma laha laakiin xukuumadda ma jawaabtay ya ma jawaabtay xukuumadda hore uga jawaabtay wasiirka dawladda uga jawaabay oo dhagay Soomaaliya waxa loo baahan yahay xukuumaddu marka xisbiga ka hadlo watan soo gariiraysa cidda hawada walaysay ma inta aad u joogtay soo lama sheegin waa bal ogaada horta xukuumaddu watan soo gariiraysa luqmaano xisbiga ka marka hadlo anigu markaan hadlo soo shacabku marka hadlo soo gariiray markan ay Soomaaliya keento maxaa keenay xukuumadda inay dhumaalaysato maxaa keenay xukuumadda marka dalal kale aynu kala madax banaano xad iyo dhul baan isku haysan waxay xigto qurba joogti maanta dalkiina Kenya jabaan bay keeneen waayo e-visa wuxuu ku hirgalay raali anshaxa xukuumadda madaxweynaha haddana iyadoo raali ka noqon mu hirgaleen xukuumadda madaxweynaha Soomaaliya ku yeedanaysa markii horena aad waqtigii kulmiye ahaydeen idinku kulmiyaad ku yeedan jirteen Soomaaliya hata Soomaaliya madax dhulka ugu dhufatay ee Somaliland dalka dhigtay dunida laga ixtiraafsan yahay maxay ugu dhufatay soo kun wasiiradooda fadhiya la Somaliland way ogolaatay anaku asayana maxay sofiyaanatiga madax banaanida dhuleeda Soomaaliya aynu xaqiijinayna lacagta maana baahnay lacagta oo si diinayna miyay ka jawaabto ifiiso waarubkaad horta inaad ka adkaatay hadalkiisu muxuu ku yeelayaa ma sootan xuduud dadkaagii dartood Somaliland qurba joogta reer Somaliland waa dadka qadiyadooda ugu adag ma waxa doonaysaa diyaaradaha ay joojiyto kaliya xalka la helayo taama oo dadku ay xayrmaan luqmaan u kaadi برياح في الحكومة ما في عمل دي مرسى وكان القانون ما أنا ودي مدح بنام بنا ما يمتي ذي كذا ما يصاد هذا السماع هذي لحد بنا وحويا ما أنت قرب شوكتني حقيقة ودكتور ما حبك عدما حاول تشوفس حكومة المصبحين محي في سالو هيرجلوا أي شك هو ده يقول لك سبعة محلو هيرجلوا أي حكومة حلقي كوفيد 19 وحيسكت دي أمريكا ديارنا سماع أين لقوا يمات واتي كده قالت dib looga hadalka looga furay soo diyaaradii fly Dubai iyo Air Arabia muu joojin oo ummadii kumay kadeed min qiimo qaali oo Ethiopian Airlines ka qaydeen oo Ethiopian Airlines qiimii tigidhka ma bilaabin markii fursadda la siiyay ma fursadiyo kala dartaa in la siiyo shirkado gaar ah oo dadka macaasha waxa weeyaan dadkii qurba jooga reer Somaliland ee dalkooda jeclaa waxa uu iman waayeen dalkoodii oo igu niyad jabeen markii xukuumaddu oo dabcan inoo sheegtay inay qarannimadu dagaalamayso iyadoo laakiin xukuumaddu markii ay si bilaashirooda ku aqbashay si ay noo muuqatay marka madaxda Soomaaliya sheegayaan iyagu qarannimadooda xaqiijinayaan laakiin Soomaaliland lacagta yar bay u baahnaa lacagta oo siinay imka hadalkoodu saas ka soo baxay way hadalkoodu markay laayeen Musabbix farmaajo oo bir dhexdii hadlay markuu la Musabbix waxa ku heshinay taasan ku heshinay abeebaan maqlayay u lahaa awlaa bi Axmed baan maqlayay marun buu ka sheegay waxaad ii sheegtaa madaxweynaha Musabbix la joogtay markuu farmaajo laawan heshiina bi Axmed baan maqlayay abi Axmed baan naga marxaatiya marun buu sheegay war Musabbix ragnimadiisa ma gaari kartid dawladda Ciraaq Musabbix ragnimadiisa ma gaari ragnimada halka inoo hadlayna war taada ma wada yartayso madax sidii taariikhda noogu sheegay marun buu sheegay horta farmaajo abi marka marun buu sheegay Soomaa farmaajo haday kuwana maanta ku sheegay farmaajo waa kiisku daynayo maanta Hargeysa xitaa Itoobiya soo maray horta hadalkiisa marun buu amsa been hadalkiisa waa been kuwana marka maxaa diiday inay been noqoto soo tan cadeyntii soo ka cadeyntii
fiisa haddaan Soomaaliya qof jooga ma waxaan hadal hayn buu hayaa may madaarkaaga tagde qurba joogtaadi maada taas macdin ma u baahan dee ma waxaad doonaysaa sid musabixiin diyaaradaha la joojiyo falayduma iyo ganacsigaas dabcan diyaaradii amarka Soomaaliland qaadan weeyay diyaaradaha ganacsiga oo markaa ma dadku soo ma noqonayaan dad meel ka oodan maxaa u shaqeynaya qurba joogtii meel Itoobiya ku heedo dadka xamsanay maxaa lagu qaaday Maxamedow waa runtii dhigay Soomaaliya waxaan ku sheegay ma dhowd waxa la diyaaradda Djibouti horena waan u sheegay diyaaradda Djibouti in la joojiyo xaraam bay hadiyado tii xamar shaqeynayso waa ku horta taas Djibouti baasaboorkaaga diiday waana dhigayso horta wariya baasaboorkaaga horta Djibouti in la joojiyo iyadoo tii xamar shaqeynayso xaraam bay maanta in xukuumaddeenu bilaa shuruud ay ku aqbashay in Soomaaliya cashuurto ay ogolaansho bixiso qof kasta oo dalka soo galaysa qofkaani doonayna ay u diiday xukuumadda ma ogolaato qofka Dubai baa laga qaadayo madaarka Dubai baa lagu weydiiyay amarka waxa la dawladeena haday tiraama qaadi kartaan kuma soo qaadi ma oran karto dawladeenu diyaaradda joojiso bay ka xigtaa ma dadka go'doon la galiyo rabtaa laakiin Djibouti airportkoodii ka diiday in baasaboorka Soomaaliya laga tago waa laba kala duwan Maxamed ku weydiiya madaarka Hargeysa ma Soomaaliya maamusha mise Soomaaliland madaarka Dubai baa dadka laga joojiyay madaarka Hargeysa maamula Soomaaliland ma maamusha haadade dama oran adigu joog dama ka joog madaarkaaga wad ka joog karlaad dama adag ma waan isku wareysana ka joog Soomaaliya ma maamusha mise maamusha isma wareysana waan ku wareysana waa horta ka Soomaaliya maamusha madaarka Hargeysa maadaama ay Soomaaliland maamusho cidii ka soo degaysa iyo shuruudaha ku soo degaysana Soomaaliland ma gacanta ku haysa diyaaradaha ay noo imanaya waa diyaarado maxaan iraahdaa dhaqaale doona macaash doona diyaaradii ku madax ku xadgudubta qarannimadeena maanta hadaynu ka aamusno ma ilaalin karno marka madaarka Dubai baan maamulay dadka ay ku naan khasab ku soo daayay awooddaas leen luqmaan gulwadnimadu yana halka ka gaadhay dama awooddaas leen halka ka gaadhay ma awooddaas leen halkeenan maamula diyaaradii diida in amarka xukuumadda Soomaaliland qaadato waa in la joojiyo ma awoodda ma lihi waa diyaaradda inuu kuma joojin karno ma diyaaradda way joojin karnaa laakiin madaarka Dubai ma maamuli karno Dubai war Hargeysa ma maamusha Dubai ma maamula Hiloordin Hargeysa ma maamusha mise maamusha fiisaalkii qofka lagu weydiiyay Hargeysa ma maamusha mise maamusha halkee lagu weydiiyay destination-ka uu fiisa qofka fiisa u soo go'onaya ama halku u socdo u soo goosanaya waxa weeyaan waa Hargeysa hay halka lagu weydiiyay waa halkee warartay ka dawlad Hargeysana xukuumadda Soomaaliland baa ka talisa cidii dalkeena xuduudihiisa dhuleed badeed cireed soo galaysa go'aamadeeda waxa iska leh waa xukuumaddeena marka xukuumaddeena loo baahan yahay mowqif sax ah inay ka qaadato horena waan sheegay waxa loo baahan yahay xukuumaddeena hadii farsamo iyo aqoon iyo arinkeedii inaanay haynin ragay soo maamulay madaarka ee iska celiyay Soomaaliya ee dalka way joogaan de hala tashato simbali xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro inay si hore shaban ay ku dhiibto wax laga aqbalayo adiguna ay tahay inaad aqbasho maaha aniguna ay tahay inaan aqbalo maaha waxay tahay aniguna inaan waxaan ku difaaci karin ku difaaca adiguna aad ku difaacdo horta maaha arinta fiisaha xukuumadda way ku fashilantay maanta xukuumadda jirta anigoo sida ugu adag uga soo horjeeda waxaan 100% ku taageersanahay barnaamijyada qarannimada sida ixtiraafka Israa'iil ka keentay xaj 100% waxaan ku taageersanahay barnaamijyada qarannimada laakiin de ka yeelimeyn xukuumaddu inay dareenkeedan fadhiin ugu maamusho oo shalayna wasiirka arrimaha gudaha lahaa xuduudaheena cid kama soo talaabin maantana uu leeyahay colaada cidana wada de ma xume de cadeena soo dhigay wasiirka miiska soo saar may xunta dadkeena cadeena u soo bandhigo de ha cadeen laakiin afka xukuumadda ay doonayso inaan ku hadalno shacabka reer Soomaaliland goobta waxaan sheegay afkaad ku hadlaysaa kelmadda aan sheegay afkaygan ku hadlaya afka qarannimada ilaalin ku hadlaya afka qarannimada ilaalin ma ka Djibouti waa cadiba kaadi horta luqmaano dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa war waxa weeyaan waxaynu wax ku ahayn waa dimuqraadiyad waa jaar wanaag waa nabad intii maanta khatar bay ku jirtaa jidkeedina ma hayso xukuumadda talada haysa Maxamed Cali Axmed Daarood gabagabadii waraysigan taaganahay shirweyne ayuu kulmiye Hargeysa ku qabsaday dhawaan kamaad qayb gelin go'aanka adaasi iska ayaa u qaatay su'aalahan ka weydiin waxay noqonaysaa koow maxaa xisbiga kulmiye shirweynihiisa uga qayb gali weyday laba doorashada musharaxnimo ee Maxamed Kahin saad aragtaa xisbiga kulmiye shirweynihiisa kama qayb gelin ma ahayn marka wax dhibaato iyo wax mushkilado naga maqnaa ma jirin arrimo shakhsi ah kaga maqnaa xisbiga kulmiye ka tirsanahay meel uga socdo meel kama tagayo mujaahid Maxamed Kahin Axmed marar hore oo hadlay oo badan waan sheegay Maxamed Kahin Axmed qof ahaan iyo siyaasad ahaan baan taageersanahay Maxamed Kahin musharax madaxweyne xisbiga hankiisa siyaasadeed oo ku dhisaya oo ku garab taaganahay in badan buu xisbiga soo samray cid maanta ka badan ma jirto Maxamed Kahin hogaanka sida kulmiye caadadu ahayd gudoomiyaha koowaad lagu wareejiyay gudoomiyaha deegaankaaga ma filaysaa in matalaad rasmiya oo u noqon doono Cabdicasiis Maxamed Samaale oo dadka iyo isku wada doona deegaankaaga mujaahid Maxamed Kahin Axmed maadaama isaga hankiisa siyaasiga lagu taageero lagu garab istaagay
marka mujaahidka isagana waxaanu ka filaynaa iyo ragga ku dhowdhowga in doorashada xisbiga kulmiye ay marka maalintii timaado inuu wareejiyo xisbiga uu si furan u wareejiyo golo soo dhigo oo markaa cidda ugu mudan loo arki karo inay xambaari karto hanka iyo himilada xisbiga guunka ee kulmiye ay chanceskaas. maxaad uga jeedaa cidda xambaari karta cabdicasiis samaale ma xambaari karo himilada deegaanka aad kasoo wada jeedaan miya? cabdicasiis maxamed samaale waa nin ixtiraam badan u hayo, waa nin xisbiga kulmiye muddo dheer kasoo tirsanay soo wada shaqeynay aan isku dhownahay runtii, laakiin cabdicasiis maanta waa nin ku magacaaban wareegta madaxweyne cabdiraxmaan ciro oo maxay oo ah inuu guddi gaar oo madaxweynuhu saaray mid kamid ah howlihii uga baahnaa arrimaha gobolada galbeedka uu ku jiray. marka taas waa qodob. ilaa hadda qaabka xiriirkiisa amba uga soo baxayo amba hadalad jeedintiisa marka soo baxaysana waa nin la dhacsan siyaasadda xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. qalbiga biniaadamkuna laba shay ma wada qaadi karo. cabdicasiis maxamed samaale haddii ay ka go-an tahay inuu xisbi mucaarada oo kulmiye oo doorkii xilligii madaxweyne siilaay la yarxamo xisbigu qaatay, doorkii madaxweyne muuse biixi xilligii uu qaatay xisbi nooca la mid ah inuu hogaamiyo hadday ka go-an tahay tallaabooyinka hor yaalla kow waa inuu horta guddidaa shaaciyo si public inuu isku casilay aniga siday la tahay si uu taageerayaasha u kasbado kalsoonidooda. number 2 waa inuu dib ugu noqdo hadaladiisa markasta taageerada xukuumadda xisbiga oo tahay tusaalan ku siinaya markii madaxweyne Allah yarxamo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu keenay maalgashiga Imaaraadka Carabta, cabdiraxmaan ciro intuu soo istaagay buu madaxweyne Siilaayo Allah yarxamo ku eedeeyay inuu yahay khayr wadan uu ka horim saacad uga horimid heshiiska DP1 anu siyaasad ahaan markaan sharaxo arrinta ma waxaan aaminsanahay in marka cabdiraxmaan ciro uu fahansanaa ahmiyadda uu mashruucan leeyahay, laakiin dee arrin uu taageerayaashiisa ku haysanayay oo uu Siilaayo kursiga ka riixay ahayd. haddaba maanta haddiiba sidii maalintii dhowid qadadii ay isugu yimaadeen cabdilaahi geljira isugu jawaabayeen cabdicasiis maxamed samaale oo lahaa anagu mucaaradii waan ka turanaa idinku wadani oo hayso mucaaradina hadduu doonayo cabdicasiis inuu xisbiga wadani gudihiisa uu ka wayacgeliyo inaanay ismucaaradin eeg amba hadalkiisa qaybtii dambe ku jirta inta la keenayo matalan ixtiraafyo kale dee waxaa la doonaya tira xukuumaddu ixtiraafka Israa'iil bay keentay wax kale ma keeni karto annaga keenana kuwa kale ee qadiyadda xisbiga kulmiye looga baahan yahay raggiisu waa taas loogama baahna xisbiga kulmiye si habeenkii lagu xafladii TV-ga goobtii TV-ga lagu furayay muxuu magaciisa koon dee ragga siyaasadda ku tartamayaan inuu xariga u qabto looma baahna. maxaad uga jeedaa xariga u qabto? xisbi xaakimka gudoomiyaha xisbi xaakimkan arkay isagoo xariga u haya marka xirsi miya gudoomiyaha xisbi xaakimka magaciisa garanaya inuu xariga u hayo. marka waxa weeyaan waxaan uga baahanahay cabdicasiis aanu melihi waa nin waayaraga wasiirka maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waa nin mudan maanta inuu hogaamiyo, laakiin dee damaceedii iyo fafaalaheedii iyo hankeedii iyo raganimadeedii baa laga rabaa. madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweyne hore dalka luqmaan odogeed markuu doonayay isagoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye markuu doonayay musharax si uu banaanka u dhigo madaxweynihii dalka oo xisbi xaakimka isagoo xisbi xaakimka ayuu iska laalaadiyay odogeed qadiyadii ka dhacday doodii xisbiga kulmiye gudihiisa yani hanka muuse biixi aan la hor istaagin aakhirkii waxay keentay muusena markaa inuu dib u istaago buuqa joojiyo isagana hadhow musharaxnimadiisa aan lagu wada hadal. madaxweynaha imika dalka haysta cabdiraxmaan ciro mucaaradadii ugu adkayd buu kala hor yimiday muuse iyo Siilaayo weligii uma sacabatumin umana dhoola cadeyn. dee maanta ninka xisbiga kulmiye raba waxaa la rabaa jidkii muuse biixi iyo maxaa Siilaayo mucaaradada ay soo mareen deena u maraan maalin kasta madal xukuumadda in hadallada baxsan oo u muujinaya in ardaaga xukuumadda uu qofku jeclaysan inuu sii joogo loogama baahna. way markaad leedahay tusaale ahaan xadhigu u hayay ma xirtiin in xadhig kale laba maqas lagu jaro may waxaan rabnaa xisbiga kulmiye raggiisu looma baahna inay manxiis u noqdaan xisbi xaakimka wadani. waxaan u baahanahay nin kastoo magaca iyo tooniga xisbiga kulmiye matalo si uu u kasban karo hanka iyo himilada taageerayaasha kulmiye. waxaa loo baahan yahay madalaha iyo goobaha maxaan ahdaa muuqaalkiisa siyaasiga hoos u dhigaysa inuu aqoonsado oo dib uga istaago. haddaanad xadhiga jireen ha qaban dee xadhig oo fadhiiso adigu haddaanad jireen ha qaban oo fadhiiso. maxamed cali daarood maarayii hore wakaaladda biyaha Somaliland maarayii hore wakaaladda biyaha Hargeysa subax wanaagsan aad baan saaxiib iyo walaal kugu mahadnaqayaa in studio ay igu timid waraysiga siisay aad iyo aad baad mahadsantahay. الله ولا لي قرر على هو أكمل قولي تيدا تمسي بكارك وحنودا أنت ليه كبر حتى هتيك وجود عادته حد ممكن نقول جيت تجاوب بعد تيدا تمسي كم عريا اللي بعد سمجرت تمسي أنا أنت تابيو الله يلهي هو بس دي الشيء إيه تيدا تمسي وابتهيو إيه نظيف إيه عرف أوس الرئيسة وعريدي أنا تكون درامين تمسي بالجهلة dhibaato kasta oo wasakh ku geysato ha noqoto mid kugu daaratay amba si kala ku martay
xalkeedu waa taydha tamsi